رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام عليكم ورحمة الله. فائدooyinka uu leeyahay guurka badan. maanta mawduuceena waxaynu ku eegi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay guurka badani. hadday tahay faa'iidada uu leeyahay haweenka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ragga. haddaba hore aynu ugu socono barnaamijkeena. mahadoo dhan horta waxa iska leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala. allah adoomadiisa u baneeyay inay guursadaan hal xaas ilaa afar xaas. nabadgelyo iyo naxariisno korkiisa ee bahayeele. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabigeenu mid ku guuleystay kana soo baxay waajibaadkii iyo cadaaladii looga banaa haweenkii tirada badnaa ee uu qabay nabigu sallallahu alayhi wasallam hooyooyinkeen. haddaba si aynu wada ogsoonahay haddaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomadiisa uma sharciyeeyo shay aanay ku jirin dantoodu iyo wanaagoodu, waayo isaga ayaa khabiir u ah arrimahooda. sidoo kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam kuma hadlo waxaan xaq ahayn, in huwa ilaa waxyun yuuxa. oraahdiisu waa waxyi, kumana dhaqaaqo waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu farin, ummadiisana uma ogolaado waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu fasx uga haysan. afkiisa iyo adinkiisuba nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa xaq. waxyaabaha uu sharciyeeyna waxaa ka mid ah inuu ninku guursado wax ka badan hal xaas. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala arrintan waxa uu sharciyeeyay haddaba ujeedooyin iyo xikmado oo maanta qaybo ka mid ah la ogaaday noloshan casriga maanta. qaybo badan oo kalena la ogaan doono markay noloshu horumar ballaaran sii gaadho ee dadka aqoontooda ay sii kabcdo. haddaba faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah inay horta bulshadu kaga fogaato fusuqa, sidoo kalena uu sii jiro taranta aadanuhu. waayo haddii ay bulshada ku bataan haweenka bilaa guurka ah, waxa taas ay ka dhalanaysaa oo taas ka dhalanaya fusuq ayaa ka dhalanaya, iyo inay xumaantu faafto, xanuunada dilaaga ay ku dhex faafaan bulshada. bal imaka waxaad sawirtaa adigu walaasha amba inantaada oo qangaadha, balse laakiin si aan haynin cid guursata, warwar intee leeg ayay kugu hayn lahayd? waxa dareemi karo un baan odhan karnaa arrinkaas qof ay dhibaatadaasi la soo gudbanaatay. haddaba danta haweenka ugu jirta guurka ayaa ka badan danta ugu jirta ragga, waayo ragga iyo haweenka isuma dheeli tirna. cidda sharcigan dejisay ee ansixisayna waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala. ilaahay oo yidhi dulmiga naftayda waan ka xarimay, idinkuna haystulmiina. xadiis qudsi ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ku yidhi oo uu ku sheegay addoomahaygii oo anigu dulmiga waan ka xarimay naftayda, idinkuna dhexdiina waan idinka xarimay ee haystulmiina. bal haddaba ma kula tahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dulmiga naftiisa uu ka xarimay, isla jeerkaasna uu u sharciyeeyay arrin uu dulmi ku jiro haweenka? jawaabtu waa maya. allah xumaan ka hufan, allihii haweenka uumay ayaana cid walbana uga aqoon badan. waa runtu markay run tahay. ilaaha dumarka abuuray ayaa cid walba uga aqoon badan. halka ay dantoodu ku jirto isaga ayuunbaa og. dulmina kuma jiro shayga ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xalaaleeyey in lala guursado haweenkana. allah wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa ma idinka ayaa wax walba og mise aniga? ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa wax walba og. dabcan isaga ayaa wax walba oo aqoon badan, waayo allah waa caliim waana khabiir, waxuu ogayay waxa laabaha ku sugan. maxaa haddaba ninka loogu ogolaaday haddaynu isweydiino ninku inuu guursado hal xaas iyo wax ka badan? xikmadahaas baan maanta tilmaami doonaa. horta waa marka koowaad ee had iyo jeer ragga ayaa ka tira yar haweenka marka la jalleeco dhammaan tirakoobyada adduunka, waayo raggu waa cidda ugu badan ee ku dhimata dagaalada, shilalka gawaadhida iyo waxa la mid a. markaas haddii uu nin walbaaba uu ku kaaftoomo hal xaas, dumar badan ayaa cidlo ku dhacaya. runtii maantana raggooda way kala duwan yihiin oo midu waa caruur, midu waxa weeyaan dee qof gacanta lagu hayo noloshiisii oo ilaa 15 iyo 18 inta u dhaxaysa waxbarashadiisii gacanta lagu hayo. ninna waxa weeyaan dee nin balwad iyo wax kale ku foogan oo hawlo kale ku mashquulsan.
runtii ninkii adduunna hayay ila wax walba awoodday ku xidhan yihiin nabigu sallallahu alayhi wasallam waa kii lahaa ninkii guur awoodo guurso guur badan haddaynu leynahayna isna awoodunbuu ku xidhan yahay oo ninkii guur badan awooda ayuunbaa guursan karaa laakiin se haddii kale waxay noqonaysaa haddii aad adiga oo waxba haynin aad reerkii kale aad lahayd aad reer kale ka dul keentid runtii reerkii hore unbaad burburinaysaa wax maad soo kordhin markaa waxaa dhacda mararka qaar waxaa dhacda inuu ninku haddaba guursado haweeney tusaale ahaan ma dhalaysaa oo isagu ubad ayuu baahan yahay markaa waxaa dhacda mararka qaar haweeneydaas dee inay carruur iyo ubad ay u dhali weydo bal ma waxa qurux badan inuu la guursado mise inuu iska furo runtii jawaabtaa idinkaan diideynaya gabadhu marka ay qayngaadh noqotoba horta iyadu waxay diyaar u tahay guur halka wiilkii ay isku ayniga yahayna looga baahan yahay inuu wax tabcado si uu u guursado sidaa awgeed dumar badan oo diyaar ah ayaa cadilma waayo runtii dee maanta raggii awoodda lahaa ay ku hayn lahaayeen hal xaas iyo wixii ka badan runtii ay aad bay u yaryihiin marka haddii aynu qariib inagu noqoto oo aan la yaabno runtii oo aynu soo dhaweyn weyno guurka badan haddaynu soo dhaweyn weydano oo bulshahaan aynu fududin weyno waxaa dhalanaya fusuq badan iyo haween badanba inay guurlaan ku dhacdo ayaa dhalanaysaa waxaa jirta imaka tusaale ahaan oo kale xilliyo aanay xaasku diyaar oo aanay u ahayn ninkeeda sida xilliga caadada iyo dhalmada marka xilligaas ragga qaar ayaan isxakamayn karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dareenka uu ku abuuray dadku way kala duwan yihiin sida nin walbaba intuu cuntada ka cuni karo ayay xaajadooduna ay u kala duwan yihiin ilaahay baana subxaanahu wa tacaala arrinkan ku abuuray haddii uu si xalaala u gudan waayo oo isagoo reer leh uu meelo kale wax ka eegeegana wuxuu la mid yahay runtii qof dee magaranaysa qof dilay oo kale buu la mid yahay marka intuu dembiga intaa leg ku dhici lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu baneeyey qofkaasi oo kale inuu xaas labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraadba uu guursan karo haddii uu buuxinayo shuruudihii looga baahnaa haddii uu yahay mid buuxiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu baneeyey hal xaas iyo laba xaas iyo saddex xaas iyo afar xaasba wixii ka badan ayuu baneeyey ilaa afar xaas wixii ka hooseeya cafan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u baneeyey markaa si aanu qofku xumaan ugu dhicin waxa la gudboon inuu waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u baneeyey uu sameeyo ayaa la gudboon haddaba xaqsoorka marka aad haddaba xaasad yeelatid aad reer yeelatid runtii waxa muhiima uu xaqsoorkooda xaasaska waxyaabaha ugu horeeya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ina farayana waxa ka mid ah cadaaladda allah waxa uu yidhi oo uu idin faraya cadaaladda iyo samafalka haddaba ruuxa muslimka waxa la gudboon inuu dhammaan noloshiisa uu ku sargooyo cadaalad iyo sinaan waa inuu cadaaladda sameeyo ubadkiisa hadday tahay aafooyinkiisa iyo dhammaanba xaasaskiisa waa inuu ka sima hadday tahay biilka qaybta hurdada iyo dhammaan arrimaha nolosha nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam aad buu uga digay in haweenka loo kala eexdo waxaanuu yidhi ninka laba xaas leh ee midkood dhankoodu janjeera ee u dee wax siyaadaa ugu dara maalinta qiyaamaha waxa uu imanayaa isagoo dhinaca kale uu jiidayuu imanaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadahaas ayuu walaal u sharciyey guurka badan waxaana loo baahan yahay bulsho ahaan dee maanta waxyaalo fara badan oo waxaa jira qariib inagu soo noqonaya runtii diintan waxay ku bilaabantay iyadoo la qariibsanayo waxaana ku dambayn doontaa sida axaadiistu ay sheegayaan iyadoo la qariibsanayo ayay ku dambayn doontaa maanta ninkan afarta xaas leh runtii aad baa loola tacajabaa dee muuqaalo badan iyo fiidooyo badan baa laga diyaariyaa sida uu ninka uu ummadan iskugu hayo oo u dhaqaayo waxa halkaas aynu ka garan karnaa in dadka reeraha badan leh ama halxaas wax ka badan leh ee aad u yar yihiin maanta bulsho ahaana fusuqan iyo xumaantan waxay naga kala yaarayn karaa haweenkeynina ay guur badan ay ku heli karaan oo ay guur xalaala iyo ori xalaala waxay ku noqon kartaa in aynu guurka fudayno runtiina la soo dhaweeyo oo waalidka hadday tahay aan lala yaabin maanta tusaale haddaan ina siiyo marka walaasha laga guursado runtii iyadoo shaygu dee xalaal iyo ilaahay u baneeyey laakiin si haddana waad yar kaansa waxa kaashadaasi waxa loo baahan yahay meesha ka baxda walaalayaal waayo xikmadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkan uu sharciyey
ayaa ka weyn inta inaga noo muuqata cilmigeenu haddaynu nahay bini-aadan waa koobayay maanta waxyaalo ka mida waa laga ogaaday laakiinse waxyaalo fara badan oo kalena waa la ogaan doonaa marka ay aqoonta bini-aadanku sare u kacdo aad baa loo ogaan doonaa haddaba waxaa loo baahan yahay inaan guurkana ku dadaalno oo aynu guurku waxaaye wuxuu u roon yahay farjiga ayuu u asturnaan roon yahay iyo indhahaba waa u laabid fiican yahay sidii axaadiista iyo diinteena islaamku inoo sheegayso dhalinyarta ruuxii aan guursanna waxaa la gudboon runtii maadaama uu qeyb ka mida diintiisu ay dhammaystirmayso in guurka ay ku dadaalaan ayaan aada iyo aada ugula talin lahaa haddaba intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida ama muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idiga tegayaa meel walbaad caalamka ka joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu